waa ay dadka aaminsan feminism-ka waa dad nooceeya ayay yihiin maxaase looga jeedaa macno ahaan erigan feminism yaa ka dambeeya ururkan waa maxayse feminism-ku aragtidan feminism-ku waa kacdoon bulsho marka waqti la joogaba mawjada soo kicisa hadalhayntiisuna hal mar ay adduunka qabsato eriga feminism af Soomaali ahaan wuxuu ku noqonayaa naagnimo ambase dumarnimo daawade soo dhawow waanigoo ah Nadara Saciid si aad feminism-ka wax badan uga ogaatid nala joog ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan sidoo kale wax yar oo mahadcelina waxaynu gaarnay 200,000 oo followers waxaanu mahadcelinayaa qof kasto kamid ah taageerayaasha ku xidhan page-kan Nadara Saciid sidoo kale maxaa la oran jiray waxaanu saaranay wadadii aynu ku gaari lahayn 300,000 nagu soo biir daawade haddii aanad kamid ahayn asxaabta nagu xidhan soo dhawow nidaamkan waxaa soo saaray nin lagu magacaabo Charles ninkani wuxuu ahaa gaal shuuciya sidoo kalena wuxuu kamid ahaa dadka u dooda arrimaha bulshada ururkan feminism-ka wuxuu ka yimid ambase uu ka soo farcamay wax halkaas reer galbeedka dadka feminism-ka waxay tiir ka dhigtaan ambase ay ku doodaan inay yihiin qaar difaacaya dumarka iyagoo raadinaya xuquuqdooda una doodaya laakiinse xaqiiqadu sidaas way ka duwan tahay wayna ka dheertay tusaale dadka feminism-ka waxay ku doodaan waa in gebi ahaanba la baabi'iyaa kala duwanaanshaha u dhaxeeya rag iyo dumarka ee dabiiciga ah yacni waxay aaminsan yihiin ambase ka dhaadhacsanba maba jiraan wax la yidhaahdo rag mana jiraan sidoo kale wax la yidhaahdo dumar intaas kuma ekaanin feminism-ku waxay uga sii gudbeen waxyaabo ay diintu diidayso ambase kasoo horjeedo iyagoo dafiraya abuurka alleh ee uu ibni aadamka abuuray taasooy dafireen qaabku u abuuray alleh aadamiga waxayna ku doodeen qofka isaga dooran kara jinsigu doonayo isaga ayaana iska dhigi kara lab sidoo kalena isaga iska dhigi kara dhadig haddii uu qofku doorto yacni jinsigu doono ayuu qofku iska dhigi karaa taasina waxay kasoo horjeedaa ambase ay khilaafaysaa yacni su ilaahay iyaga u abuuray waxay rabaan inay say doonaan iyagu iska dhigaan waxay ku doodayaan feminism-ka wuu iska dhigi karaa qofkan isaga ayaa doortay inuu lab iska dhigo isaga ayaa doortay inuu dhadig iska dhigo isaga ayaa doortay inuu xayawaan iska dhigo ururkan feminism-ka waxyaabaha u hirgalay waxaa kamid ah tusaale baasaboorada qaar waxa lagu qori jiray ambase badankooda waa sex laakiin imaka waxaa lagu qoraa gender waana mashruuc ambase arrin iyagu ka dambeeyeen oo u hirgalay daawade haddii aad haysato passport soo qaad kadibna waxaad ka eegtaa oo tijaabisaa inuu ku qoran yahay sex ambase gender waxaan ka wadaa meeshay ku qoran tahay male ambase female maxaa ka horeeyo adiga kugu qoran fadlan nagula wadaag xagga commentiga sidoo kale waxyaabahay hirgeliyeen feminism-ka waxaa kamid ah inaan la odhan nin iyo naagba isla socda ee la yidhaahdo waa partner arrintaasna waxay ka hirgeliyeen goobo fara badan sida hoteelada cajaa'ibka feminism-ku intaasoo keliya tama ku eka heer waxay gaadheen ay ku doodaan waa in aan la odhan ilaahay wuxuu yidhi ee la yidhaahdo ilaahay waxay tidhi duqdan oo beri dhaweytoole bakhtiday waxaa lagu magacaabaa Nawaal al-Sacdaawi waxaa laga yaabaa badankiinu inaad garanaysaan waxaa dhacday dhowr jeer inay ilaahay aaydo soo kalena waxay tidhi horta ilaahay nin muxuu u yahay astaghfirullah waxay ka mid ahayd dadka ugu cadcad ee feminism-ka aaminsan Nawaal al-Sacdaawi marar badan ayay ilaahay u gaftay feminism-ku waa foolxumo iyo welibana aragti shaydaan intaasoo keliya kuma ekaanina waxay yidhaahdeen sida ragga muslimiinta ahi salaada u tujiyaan waa in dumarka muslimiinta ahi ay helaan xuquuq iyo awood iyaguna wax ku tujin karaan subxaanallah talomiyina ogeyn ilaahay agtiisa lab iyo dhadig in loo siman yahay laakiinse qof kastaaba camalku la yimaado uu ilaahay ugu dhowaanayo haddaba feminism-ku waa dadka noocaasa sidee ay dumarka Soomaaliyeed amba gabdhaha Soomaaliyeed ugu doodi karaan amba u odhan karaan xaq iyo xuquuq naga maqan baraadsanayna xaqaas ay raadinayaan ee uu ilaahay ka ilaaway muxuu yahay se muxuu noqon karaa sidoo kale waxyaabaha feminism-ku ku doodaan waxaa kamid ah waa inay dumarkuna wax guursan karaan awoodna u yeeshaan inay wax furi karaan yacni dumarku waa inay waxna guursan karaan waxna furi karaan waxa u caadi ah inaanay gabadhu waxba dhalin sidoo kalena waa inay ilmaha iska soo xaaqdaa xilligii doonto iyo goortay doontaba waxay aaminsan dumarku haddii wax dhalaan amba ay gabadhu ay wax dhasho inayna ninka gaari karaynin lana tartami karaynin sidoo kale waxay yidhaahdeen waa inay isguursadaan dadka isku jinsiga ah yacni laba dumara waa inay isguursan karaan laba rag ahna sidoo kale waa inay isguursan karaan feminism-ka waxyaabahaasoo dhan wuxuu ka dhigayaa waxyaabo caadiya oo iska normala aragtidii shaydaanka ambase feminism-ku sidoo kale waxay yidhaahdaan waa in rag iyo dumarku ay isku dhar xidhaan yacni waa inaan la odhan
dharkaana dumarkaa leh dharkaana raggaa leh ragga iyo dumarka dharkooda waa in la simaa waa waxyaabahay ku doodaan beri dhaweed waxaa dhacday arrin la yaab leh inay dumar Soomaaliyeed ku doodeen waxay yidhaahdeen haddii uu ninku khasbo xaaskiisa iyadoon raalli ka ahayn waa kufsi arrinkaas kufsi ayuuba noqonayaa sidoo kale waxaa dhacday in la yidhaahdo walaalka aabbaha iyo ninkaagaba sideed dharka ugu maydhaa sideed cunto ugu karisaa waayo waad simantihiin iyaguba ha qabsadaan taasi waxay ka turjumaysaa ambase ay rabaan dadka feminismka aaminsanay inay gabadh kastaaba cadaawad u qaado aabaheed walaalkeed iyo ninkeedaba laakiinse hablaha Soomaaliyeed waxaa loogu soo gabanayaa iyadoo la leeyahay xaq iyo xuquuq idinka maqan baan idin raadinaynaa gabdhaha Soomaaliyeed sharafta leh waxaan uga digayaa yaan laydinka harowsanin xaq iyo xuquuq baa idinka maqan oo laydin raadinayaa ka feejignaada arrinkaas aragtidan feminismka dadka aaminsan waxay ku doodaan ambase ay tiir ka dhigtaan dunidan cadaaladi ma taalo haddaynu ka eegno xagga dhaqaalaha iyo maamulka golayaasha looga arrimiyo dalalka adduunka waxa haysta waa rag meel kasta rag ayaa ku badan waxay soo istaageen feminismku dumarku adduunkan cadaalad ma ku haystaan sidaas darteed waa in la helaa adduunyo ka duwan tan maanta aynu joogno oo rag iyo dumarku u siman yihiin waa fikirkay aaminsan yihiin iyagu waxyaabahaas ay tiir ka dhigtaan ambase ay kusoo gabadaan feminismku daawade waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan ood bartan nala soo gaadhay fadlan waxaan ka codsanayaa maadaama waqti badan uu iga galay muuqaalkan inaad adiguna like saarto sidoo kale nagu soo biir daawade haddii aan su-aal ku weydiiyo maxaad ka fahantay ambase aad ka faa'iiday barnaamijkan maanta kadib uma malaynayo in lagugu qaldi doono feminismka nagula wadaag fikirkaaga xagga kommentiga waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan